ولا ليال كلا تجاسي أنو كصور رمي ينتيجة وكاني أحقها يقللاسها يهوجا يهلاجا يليد نمدا يكلدات سنانتا يضعف نمدا أي كدحلين ضدك مسلمين تو ما أهان مد شيكوين يتاريخ ذا هراء وكوكوبا ما أنت أي كم مقطع عالم الإسلامي كنتني لح دولة دود ما أنت أي كم مقطع دول الخليج العربي يصدا أكلدات سيهين يصدا أي إسكوشر قوليان أمد بمدكي كله قدومين تأيي حصارك وقصم وحيابها ولا ليال أنو كسو ورمينو وقما ورمينو إن أينو كرا حيسنو وقما ورمينو إن أينو وقت كل منو دقيسيك شيكوينك يجبك يهوغا أي صومرين ضدك مسلمين والوحي نوغو سوغن عبرو يوحكو قادشو يا إن أينو دروس كبرنو ما أنت ضدك الصوماليات ميل كستو أي جوغان وحاكم وقتا وحي كم وقضي أندلس وحاكم وقتا وحي كم وقضي مركي للدومينيي الخلافة العباسية يا الخلافة العثمانية يا كم وقضى وحاكم وقضى قوقبنان قيب سنان كلادات سنان مامول قبلات لان رير دمان تود كوبي الشبانية ضعيف نمو يليد نمو iyo in ay hirgasho ahdaaftii cadawga uu ka lahaa dadka muslimiinta iyo ummadda Soomaalida walaalayaal waxaynu ishaaraynaa ama aynu tilmaamaynaa khilaafka maalmahan ka soo ifbaxay Somaliland iyo dawladda Soomaaliya waxaynu leenahay walaalayaal khilaafka noocaas oo kale marka uu yimaado dadka madaxda iyo hoggaanka inoo ah waxa looga baahan yahay khilaafka in la maareeyo oo si degan loo maamulo oo laga fiirsado oo laga taxadiro waxyaabaha dhaawaca reebaya ee ummadda kala dilaya waxyaabaha ayna ku jirin danta dadkan muslimiinta ee ku nool labada deegaan waxa loo baahan yahay walaalayaal in ay madaxdeenu aragti dheer u yeelato ahdaafta aw cadawgu ka damacsan yahay khilaafka dhexdeena waxa muuqda walaalayaal khilaafkan ugu dambeeyay in ay ku dhex jiraan farad dawladda Carbeed iyo dawladda shisheeye arrinkaas waxa loo baahan yahay madaxdeenu in ay dhug iyo garasho u yeelato shacabka walaalaha ah ee labada deegaan ku nool ee isku diinta ee isku dhaqanka ee isku dhalashada ee isku dhaxa ee dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan ba isku dhex milan ee aan kala maarmi karin waxa loo baahan yahay iyaguna inay ka foojignaadaan oo ay ka fiirsadaan in ay daba kacaan waxyaabo ayna garan karin guntooda waxyaabo ayna garan karin waxa la isku hayo waxaan leenahay dadkeena Soomaaliyeed waxaa tihiin dad muslimiin ah waxaa tihiin dad walaalo ah waxaa tihiin dad wada dhashay waxaa tihiin dad isku diin iyo dhaqan iyo isku af ah waxaa tihiin dad aan kala maarmin oo isku dhex jira yaanay siyaasiyiintu sabab u noqonin in aynu isnacno yaanay sabab u noqonin in aynu kala fogaano yaanay sabab u noqonin in aynu kala dhimanno way tagayaan madaxdan iyo madaxdaasiba shacabkuna isaga ayaa hadhi doona insha Allah ta'ala tawfiiqda Allah ina waafajiyo hidaayana Allah ina siiyo amni iyo amaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku arsaaqo dhammaan dadka muslimiinta